So this is Gira by Tag Consulting IT. Ashka waxaan rabaa inaan ka hadlo waa laysoo weydiiyey waxaa laygu yiri soo ku ogaan kartaa OS-ka aa haysatid ama OSW oo WOS si waa u taqaanid koodadka waxaa dhihi karaa OS waxaa waaye operation systemka oo computerkaada ku jiro ama waxaa dhihi kartaa operation system window OSW ama waxaa dhihi kartaa WOS marka terminal language waaye oo loo yaqaano OS-kaada OS-ka marka aan leedahay waxaa lagu yiri see ku ogaan kartaa oo kugu fudud OS-ka kugu jiro wax fudud weeyaan waxaan tusinayaa dariiqa ugu dhow adigoo ila socdo mouse-keeda waa aragtaa waa move gareynayaa halkaas window-ga oo ay ku qoran tahay star left click leedahay waxaa ogaanaysaa meesha ugu qoran tahay laba weeyaan rabaa inaa idin tuso halkaana waa tagi karaa system oo waa ka eegi karaa ama haddii kale get rid of halkaana tagi karaa right click aan leeyahay halkaas meesha ay ku qoran tahay settingka ama gear termka IT gear alla gear icon ama setting marka halkaasaa click leedahay wuxuu kuu soo saarayaa window-gan aan dhinacan kale kasoo bixiyey I use 2 monitor ama 3 monitor marka systemkaana tegaysaa haddaa inta shortcut-ka systemkaana tegaysaa system markaad tegtid waxa dhan intay ku jiraan arkaysaa aa ku ogaan kartaa displayka sound mafahmno anaa marka meesha aragtid window-ga aa haysatid mafahmno WOS which is a window operation system okay marka abori bis aan leedahay device-ka hadda isticmaalayo waxa ku jiro waa kasa systemka abore mafahmno PC-ga motivation waxaas dhan ku jiro waa kana computer magacayga waa kana processka iProcess iCode 7 ama i7 aan wata CPU-ga waa kana laptop waaye 16 gigabyte is enough 8 gigabyte xitaa waa iga badantaa aniga boqolaal darbiyo ma dhiso marka xitaa haddaad darbi dhisaysa 8 gigabyte is enough dad badan ay ugu dhaheen gigabyte wax kale u qaadaan depend shaqada aa qabanaysa ku xirantaa laakiin haddii aa meel yar ka shaqaysid ama dukaan aa leedahay ama aa leedahay maxay store 8 gigabyte is enough depend how isticmaasha ku xirantaa aniga 16 waa iga badan yahay iCode 7 aan wata marka the most important thing system type-ka always marka install gareynayso wuxuu ku leeyahay 64 bit miya ama 32 bit taas kama hadlayo laakiin tan very important waa wax muhiim waa inaa ogaato marka application rabta inaad download applicationada biduu ku weydiinaya waa kasoo hadla cashirkayga hore biduu ku weydiinayaa computerka magaciisa haddaan inaa iska bedel intaan rename leeyahay ma rabo inaan bedelo additionka marka window 10 enterprise hasta aniga versionka waxaa waa 1909 waa kana 2000 hadda upgrade maanta upgrade update ku samey OS waa ujeedaan building alright that's the way it is marka saasaan ku ogaan kartaa remote waxaan dhan kama hadlayo intaana laysoo weydiiyey intaan notify is very important inaad taqaano marka waxaa install gareynaysid inta bit oo computerkaada laba bit le waa 32 ama 64 mar walbana computerkaada markaa fiiriso intuu kaa siinaa bitkan is very important dadka laakiin way ignore gareeyaan ama marka application waxaa jiro driver application markaan leeyahay markaa soo dalaal gareynaysid ama driver ku weydiinaa 64 bit ma rabtaa ama 32 bit alright assalaamu calaykum